يقول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الداء والدواء: كم من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات. حليها عالم كمسلم ابن القيم إما سقف أيا كدور صنانا يا دنبيذا واوين يا فواحشتا يا قتل يا ظلم واوين لكن إيسان عرب كوذا كنبت قلين dadka nool cirdigooda iyo dadka dhintay. ibn qayyim wuxuu kaloo leeyahay الرجل يشار إليه بالديانة qofku waxa lagu tilmaamay inuu diin leeyahay, inuu sheekh yahay, inuu muftiga umada yahay, inuu caalim yahay, hadana walisanuhu yafri fi a'raad الناس arabkiisana kama nabad galin dadka cirdigooda iyo nasabkooda. taas waxay u dhigmataa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay labada shay ee naarta lagu galo inuu kamid yahay carabka. marka kufhaada carabkaasi celi takilatka ummuka hooyada ha ku waasisaas ku yiri nabiga sallallahu alayhi saxaabigi markaas wuxuu u sheegay in carabkaasi lagu hoobanayo naarta dartiisa. marka nasallallahu al-aafiya was-salaama.